KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay waryaada kala maanay kulankii labada madaxweyne dhex maray waxaan ku riyooday Muuse Bixiyo hees qaadaya wuxuuna yiri dhulaan ceel lahayn baan dhaankii u rarayaa adna dhool guyaad iyo dhibicdii ma hayside lacag baad ku nooshahay anna waxaan ku riyooday madaxweyne farmaajo ku jawaabay dhankaan anigu ka xigo dharka lama yaqaanee dhugi baanu xirannaa adna dhagorta xoolaha maro waa ka dhigataa buuraha dhexdoodii iyo dhagax baan ku seexdaa adna waxay ma dhaantida dhulka hoos qodan iyo dhufays baad kooyata war adeer anagu ma riyoode khadrad daahir waxay tiri dhulkan kala fogaadiyo labadeedna kala dheer iyo soo dhaweeya markaad adigu dhimataa naftu iga dhaqaaqda markaad adigu dheregtaa dhibaatadu idaysa dheehaaga wacan baan aniguna ku dhaashtaa dhaxalkaad abuurtaa dhitadaydu noqotaa markaan soo dhowaadaad adiguna dhaqaaqda anna kuma dhegaystee anoon dhuumanayn baan dhegaha kaa fureystaa wixii adiga kaa dhumay anigana idhaaf dhaan haddaanahay adna dhoohanaad tahay mar haddaynu dhuux iyo dhiiggaba ka simannahay midabkiiyo dhawaaqiyo diinta iyo dhalashada iyo dhaqan wadaagnahay dhudhunkaadii goysaa u dhantaalankaagee labadeennu dhuun iyo maqor baan ka dhiganne inaan kala dhaqaanaa dhegxumo iyo yaab lehe aayaha dhasheen iyo midnimada ma dhowra dhulkan kala fogaadiyo ummadeenna kala dheer yeesu soo dhoweeya waryaalahan ictiraaf baan idinka doonaynay maxaa isu soo dhaweyn keenay waxaan maqli jiray hadda koor haddii kala fogaan dhacday kala dhimashayay dhici aryadhaha aniguba waxaan maqli jiray in dhibaato igu filan faraqaan ku heesdhaa wareedhaa maanta cabdiqays iyo cabdixasan gelay heesoodii aad ku waalateene ma jacayl baa idin saaqay war anina weliba dheega jiray diidiinka weelshay daymooda ka koryeema dambara manuujiya aniguna waxaa maqli jiray ilimo waruma waasiga kaba unguuree maaha mar maroogaw war iminkaynu is afgaran laanahaye maxaynu midownaa war heesaad ku waalateene raadiyo kulmiya sanad guuridiisa mar horaye war ma haysiin maalinta fanka 5 bishay ahayd maantana waa maalintii raadiyaha adduunka war ma haysiine Amnesty International maanta war culus bay soo saartay hayaha warkaasu meeqa kiilo ahayhe National Bank raadiyo hore u haajira abu telefoon aan la dhihi jiray ma la soo canshuuray war hayadan mambacaawma idinka soo gaadhay talo ma la giibi doona war waa marantiina warka iga dhex gelinina Amnesty waxay tiri Abdirashiid jaran hal soo xira miyay ku soo celisay haddana war xala dheeraa la soo xiray maxay u dhiiweys war ma fayoobidina Amnesty waxay tiri saxaafadda Soomaaliya tan iyo markii madaxweyne farmaajo la doortay aburus iyo xadgudub baan baa lagu hayaa been ma sheegin dhaqaatiira la xirxiray miyay tiri war mar dhowbu wariyaha dhowr iyo ka booraan ma dheegna ay walweeli hatana la idin lama hadli kara inta waxay ku dartay haddana la warrami kara naga shibdhe adiguna war ilaahay nama shibiye waxay tiri 8 wariye waa la dilay ma bajaaj la yaal bay ahaayeen 8 wariye waxay tiri warbaahin badan oo baraha bulshada u badanna waa la xiray kuwa aan la xirin waa baagamuudo hanjamaadna nafta looga qaaday bay tiri cabsi gelin cid war madax bannaan sheegi kartaana ma jirtay tiri warbaahinta qaarna lacagaaba lagu siyaabay tiri inay xaqiiqada sheegin aryadaha Amnesty International warkay sheegayso inuu ka badbadisaan u filaaho haddaantan waxaad rabtiin inaad ku warramo haysan ciduna afkeedun kuma dhegana Cabdulla waadna warbaahinta lacagta la siiyay inaad ku jirtaan u fila war Amnesty dadka shaqaabuurka Facebook lagu sameeyay ma ka hadashay war madaxweynuhu saxaafadda waa jeclaan jiray maxaa dhacay war madaxweynaha saxaafadda ka gardaran sababtoo ah waagi hore ayagoon aqoon bay ammaan kala dul dhaceen haddana wax kale sheegayaan war muraadkiiska hele meel dheer ko mare waa leere war ma haysiine madaxweynaha Soomaaliya maanta Soomaaliland afis buu ka dalbaday
dalbaday aryaadhaha madaxweynuhu goormow Soomaaliland xantay war ma ciidankiibuu watay wareedha in la iscafiyaa ma xumee madaxweynuhu ma sheegay dembigu Soomaaliland ka galay ee laga cafiyayo warwarka naga dhex gelinee madaxweynuhu Soomaali oo dhan buu matalaa waxaana uu yidhi dawladda dhexe ee Soomaaliya 91dii may burburin ee dhowr iyo 80kii markii Soomaaliland la weeraray ayay dawladda dhacday war arrinkaba Muuse Biixi baa soo sheegay war mar haddii farmaajo uu yidhi hana la cafiyo muusena waxaan ka sugaynaa waa cafinay handaraabkiina waa furay war anugu waxaan aaminsanahay dad badan inay qabaan 69kii markii dawladdii la soo doortay iyo dastuurkeediiba la afgambiyey in dawladnimada Soomaaliya burburtay war dawladda Soomaaliya may baa burburtay 1950kii markii Abdiqaadir soo bilaayay naariisa eraay federaal qaadaneen oo mafadaana la eraay madaasa burburti war anigu waxaan qabaa in dawladnimada Soomaaliya burburtay 1884 markii Baarliin lagu qaybsaday aryaada mugi salaad gabayra iyo caynaansho la dilay burburka ma horeyn war markii culimada Soomaaliyeed la laayo burburka ma horeyn war markii Umar Carta Qaalib uu yiri ciidamadu jabhadaha isu dhiibeen burburka ma horeyn war ma haysiine waxa uu kale madaxweynuhu yidhi dagaalkii 77 ee Itoobiya Soomaaliya dhex maray waxa uu wiiqay awoodda dawladnimada Soomaaliya war taasna hal noo eefiyo eray war naga taga nabadoonnimadii madaxweynaha soo baxday war marba hadduu madaxweynuhu cafis dalbaday hal la cafiyo hana la isu calool fayoobaado waxa la isku haystana hal laga run sheego war dadkii garhay soo baka dhamaadi efis wal warsaday war Cabdiraxmaan Cabdi Shukuur madaxweynuhu cafis ma ka dalbaday war qalbileex madaxweynaha ma cafiyey arada hadda Axmed Madoobe iyo Danyaaba ku dhaganay may cafiyeen war madaxweynuhu wuxuu yiri wax badan aan dani la hadlay oo aan iri maalin kasta hana dul marine inta soo degtid aan wada hadalno is aragno waana uu diiday oo yiri marka haddaan xukumo hadalka madaxweynaha dani oo duldulka joojiye soo degaan dhihi lahay war dani doqon ma ahane sidii Cabdirashiid Janan in jeelka loo diro miyuu ka cabsaday baa Puntland Muqdisho looga maarmiyo horta waare heer Hirshabeelle miiska cafiyeen war madaxweynuhu Muuse Biixi ba cafiyey cid kale ku dhagan waa ka gartaranta baxsan hay Hargeysay ka gudoomay baaqi miya ambarayaan jeelka lagu dhigana sideed mooyaan loo caaqobso bawdana ulankiiseen ayoor masiinka ay madaw ulankiiseen amaanon masiinka ay madaw inta jeedan anis weheshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal maladiide wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaya yaleeray war ma haysiine madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka shalay dowladda tajiib ay sameeyeen kaafoolti dheelena yay u bootay hayeen amay boojo wadeen he kollay mucaaradkii fariin u dirayeen tawiro la yaab leh wada galeen horta mar xataa waxa kamid ahayd ayagoo u socdo oo kaabaynaya sidii atoorayaashii ayayda waxa ka maqli jiray allah cimri atoorana si atoora ma dhinta miya maandho warwarka naga dhex gelinine waxay dhaheen diiwaangelinta ciidamada waxaan u samaynay si aan horay loo arkin maanta wixii ka dambeeyana ciidan mushaar waaye iyo musuqmaasuq lama arki doono ra'iisul wasaare Khayrana wuxuu yidhi madaxweyne muddo iyo hawl adag ay nagu qaadatay inaan dhamaystirno diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka kadib madaxweynaha hadlo wuxuu yidhi ra'iisul wasaaraha taliyaha xoogga wasaaradda gaashaandhigga iyo intii kala shaqaysay waa mahadsan yihiin arooda maantadan baar dheer waxaa ka cabaadayay kuwa dhahaya 14 bilood mishaar ma qaadanin marka waaba yaabiyeen labadan war siday isu qabanayiin askari kasta iyo sarkaalkii aqbala in la diiwaangeliyo qaranka ayuu ka mid yahay laakiin waxay su'aal ka taagan tahay kii diiday mudana ra'iisul wasaare libaax laba ma aha sida wasiir Khadiija noo sheegtay ka bax xafiiska war ma haysiine xalad dood qaran baa magaalada Muqdisho ka dhacday yaa kuwa hore dood gobolmay ahaa jireen war ma dastuurkii baa la dhameystiray yaa xamar isagoo kala harharan ma haddana ku sii doodayin waxnala waalanina waa waqtigiinii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Yarey waxay tiri xisbi u diyaarsan doorasho ma jiro aryaadaha waa la murmee horta Xaliime Yarey ma weynaata miya wardoodii doorashooyinka waxaa kalamaan ku noqdo kala arki doonaaday xildhibaanadii soo ansixiyay war abukaata seere waxay tiri shabaab waxa noo keenay waa 4.5 marka waxaan rabnaa doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah allow la sugi maayo hadda war taasi maba xumee iyada xagee laga soo dooranaya war Cabdullaahi Maxamed Sharwa wuxuu yiri wax ka soo dhaca bulshada rayidka waxay u baahan tahay doorasho kuwii hore ka cadaaladsan war taaliil shaataa wuxuu yiri waxaan walaac ka qabnaa hubka magaalada Muqdisho lagu gadayo iyo doorashooyinka soo socda oo adeer xaalkiinu imika marrun ku sugbaa war been la xardhoom hoobas aragdan runga buriyaasa war anu doodii xalay waxaan ku soo xasuustay dood wadaagii Hoon Afrika bixi jiray
sababtoo cabdiraxmaan diinaar yaa daadihinay hayahee mukulaalu madaxdoolli ka maxajisaan la yidhi ambaasadoorka ma wariyo u soo naqday lambola uusan baradii umbukoode war waxaan la yaabay sambololshe waxa uu yidhi haddii lay doorto dastuurka soomaaliya waxaan ka reebayaa jamhuuriyadda federaalka inta kale waxaan leeyahay ha laga wada hadlo war federaalka goormaa lagu heshiiyey soo ka wada hadal isagu uma baahna araara sambololshe qabyaaladii sida u waday wuxuu keenay madaxweynaha hiiraana iskale warwar ma haysiina nisawr cusub ay keentay waxay dhaheen madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka banaadir waa iscasilay khilaaf madaxda sare ee shabaab kala dhexeeya ayuuna isu casilay waran waxaan la yaabay goormay niisa noqotay warbaahinta al-shabaab sirdoonka shaqadiisa waxaa ka mid ah inuu qalqalgeliyo kooxaha argixisada marka warkan ayaga lagu qalqalgelinaya waryaa war nisa maalin hore waa kuwii dhaya xarakada maanta waa bedeloona waxay dhaheen maafiya war ma talyaanigaana la geeyey oo kaale marna mana joojinaa marna mana jiifinayin waradhaa waa yaabe ninkii arbacada seexdaa muxuu naga soo doonaa khamiista warwar ma haysiine shillaawa kalexda nimcas cabdiya tikid u keentay war ani waliba ka haday ha ilig iyoonay kuraasa war cabdulla xafiiska ha ka baxo war naga taga nim war adiga laftaadu ka bax naga taga alla haydin toosiye ayow magal dhammaadi maanta